agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland uu weydiiyay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga Somaliland ayaa maanta daahfuray kulan lagu soo bandhigay siyaasadda lagu horumarinayo waaxaha qorsheynta iyo istaatistikada ee wasaaradda iyo hay'adaha dowladda. Kulankani oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa waxaa lagu soo bandhigay warbixino la xiriira qiimeyn lagu sameeyay waaxaha qorsheynta iyo istaatistikada ee wasaaradda iyo hay'adaha dowladda, xubnahaasi oo la xiriiray siyaasadda horumarinta xukuumista ee heer qaran. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay agaasimayaasha waaxaha qorsheynta ee wasaaradda iyo hay'adaha dowladda. ugu horreyn waxaa kulankaasi faahfaahin ka siiyay kasoo qaybgalayaasha ujeedka kulankani agaasimaha waaxda istaatistikada ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland Marwuuna Cabdi Axmed waxaana hadaladeedii ka mid ahaa madashan maanta ah aynu isugu keenyaadnay ujeedadeedu waxa weeyaan waxa la diyaarinayay siyaasadii lagu horumarin lahaa qaybaha planning iyo statistikada gaar ahaan qaybta planning iyo statistikada ee wasaaradaha dowladda hay'adaha madaxa bannaan iyo wasaaradda qorsheyntaba markasta oo la doonayo in istiraatiijiyad ama qorshe horumarin la sameeyo waxa ugu horeeya horta in la isqiimeeyo halka la joogo. marka waxaa jira team idin yimi oo la fariistay agaasimayaasha waaxaha planning iyo statisticska qaybaha si gaar ah madax qaybeedyada statisticska oo su'aalo ka soo weydiiyay SWOT analysis su'aalo ku saabsan halka ay marayaan, meelaha ay ku xoogan yihiin, meelaha ay weaknesseska ka leeyihiin, fursadaha ay haystaan. marka qiimeyntii baanu soo qaadnay, waanu ablaablayntii baa la doonayaa wixii ka soo baxay inaynu isla wadaagno. dabadeetana aynu eegno resultiga noo soo baxay halka aynu maraynay noo soo saareen figureska miyaynu joognaa, mayaynu ka sarreynaa, miyaynu ka hooseynaa, waa maxay steps aynu u baahannahay istiraatiijiyadan inaynu himilooyin 5 sano ee soo socdo kaga hormarino heerka aynu maanta taagannahay. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga Somaliland Mudane Cabdikariin Aadan Cade oo kulankaasi ka soo qayb galay ayaa ka warmay muhiimadda ay xogtu u leedahay guud ahaan qaranka. waxaana agaasimuhu sheegay inay muhiim tahay in laga faa'iideysto xogaha kala duwan ee soo saaraysa wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland. runtii shirkan waa shir muhiim ah oo qaranka u yahay. waa ku amaanana wasaaradda iyo howlwadeenadeedaba inay maxay tahay shirkan soo qaban qaabiyaan. Soomaalidu waxay tiraahdaa war la heliyaaba tala la hel. waxaanu ka hadlaynaa waa statistics waa xog ururin. qaranku guud ahaan xog buu ku shaqeeyaa. qorshayaasha qarankuna waxay ka dhashaan xog ururin iyo xog waraysi. dadka ugu mudan ee maanta hawshan qaban lahaana waa intiina halka fadhida. idinka xogta dalka haya, idinka agaasimayaashii waxyaha iyo qorsheynta iyo waxyaha statisticska ah. xogaha la isugayo la ururiyo bay qorshayaasha qaranka iyo higsiga iyo horsocodka ka dhashaa. runtii muddo fiican baa haysataan oo aad maartay ku shaqaysataan, waqti isugu heshaan, isku weydiisaan xogaha inagu kala qarsoon ee naga dhex daadsan. waxaan rajaynayaa hawsha marka idinku halkiina soo gaarsiisaan inaan anaguna insha Allah maamul ahaan waxaan ka qabsan karno ka qaban doono deetana sida ay heer qarno gudbi doonto. aad iyo aad baa mahadsan. intaasi kadibna kulankani waxaa si rasmi ah u daahfuray agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland Mudane Mustafa Umar Faarax waxaana hadaladiisa ka mid ahaa qorshaha 5 sanadood ee national plan baa la sameeyaa. meelahan oo kale ka bilaabantaa maanta ina eegtaan iyo biriba eegtaan wixii la xogtii la soo ururiyay halka ay marayso sida muun sheegtay statistics iyo waxa qorshaha isla eegaan dawladda la sameeyaa akhirkana magaranaysa qorshihii 5 sano ee soo socda. shirka waxa ka dambeyn doona wixii halkan ka soo garataan agaasimayaasha guud ee wasaaradahana waan u yeeri doonaa, waan la sheegareyn doonaa wixii halkan maanta ku gaadhaan iyo qiimeynta halkan ku sameeysan. taasana ka dambeyn doonta taasana agaasimayaasha guud ugu yeeri doonaa iyo idinkuna inform gareyn doontaan wixii maanta iyo shirkan ka soo kordhay ilaa biri. aad baan ku mahadnaqayaa attendance-kiina wanaagsan sidaa ugu soo qayb gasheen, sidaa u xiiseynaysan in hawsha mudnaanta qaranka u leeyihiin in ogtihiin. aadna waad mahadsantihiin. shirku inoo furan yahay.